Diblomaasi Media ayaa daawanaysaan. Soo dhowaada waa 25-ka bisha 11aad. Qaybtan saaxiibayaal wararka dunida muslimka ayaan idinkula wadaagayaa. Haddii aad igu cusub tahay fadlan subscribe ha iga ilaabin. Aan ku bilaabo qodobkan dhankaasi iyo Burkina Faso waa dal ka mid ah dalalka muslimiinta. Baarlamaanka ku-meel gaarka ah ee dalka Burkina Faso waxa uu maalin ka hor meelmariyey heshiis iskaashi oo dhanka tamarta nuclear-ka oo dalka Burkina Faso uu la galay dalka Ruushka. Heshiiskan waxa uu siinayaa dowladda Burkina Faso iyo Ruushkaba inay hirgelin karaan si wadajir ah adeegyada kaabayaasha iyo tababarka isticmaalidda tamarta nuclear-ka oo dhanka nabdoon loo adeegsanayo oo dowladda Burkina Faso ay ka faa'iideysanayso. Heshiiska markii ugu horeysay waxaa la saxiixay 19 bishii Juun sanadkan 2025 kadib shirweynihii dhaqaalaha ee ka dhacay magaalada St. Petersburg, halkaas oo ay heshiis ku gaareen dowladaha Ruushka iyo dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Burkina Faso. Ujeedadan waxay ahayd in Ruushka xilligaasi uu u qabtay shirkaasi xoojinta xiriirka dhaqaale iyo kan farsamo ee Ruushka uu la yeelanayo dalalka qaaradda Afrika. Waa maxay ujeedada heshiiska? Ujeedada heshiiska waa in la kordhiyo awoodda koronto ee dowladda Burkina Faso oo dadkiisu keliya 34% ay heli jireen koronto sanadka 2024. Sidoo kale ujeedadu waxay ahayd in la dhiso nidaam tamareed oo nuclear ah si loo taageero warshadaynta gudaha, caafimaadka, wax soo saarka beeraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dalkaas. Heshiiskan laguma qeexin wax ku saabsan hubka nuclear-ka, waxaana si cad loogu xusay oo keliya inuu ku koobnaan doono isticmaalka tamarta nuclear-ka oo dhanka nabadda ah. Qodobada kale ee heshiiska ugu muhiimsan marka la eego waxaa qayb ka ah dhowr qodob oo dhanka farsamada iyo maamulka. Waa tan koowaade dhismaha kaabayaasha tamarta nuclear-ka oo dalka Burkina Faso uu doonayo iyada oo la raacayo heerarka caalamiga ah ee hay'adda IAEA in la sameeyo nidaamkan lagana faa'iideysto. Waa tan labaad tababaridda khubaro u dhashay dalka Burkina Faso si ay u noqdaan injineerada, maamulayaasha iyo farsamayaqaanada ku takhasusayo adeegsiga tamarta. Tan saddexaad waa dhanka teknolojiyadda oo Ruushka waxay u suuragelinaysaa in dalkan uu ku wareejiyo dhanka khibradda, maamulka iyo howlgelidda warshadaha nuclear-ka. Dowladda Burkina Faso waxay doonayaan korontadaasi inay ka faa'iideystaan oo ay xoogga ku saaraan dhanka wax soo saarka. Waxaa kaloo ay doonayaan in laga taageero maaraynta radioactive-ka ama qashinka iyo waxyaabaha kale si qayb ay uga noqoto ilaalinta deegaanka. Adeegsiga teknolojiyadda iyada oo laga eegayo caafimaadka dadweynaha iyo waxyaabaha la midka ahna waa waxyaabaha dowladda Burkina Faso laga taageerayo. Su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo waxay tahay Burkina Faso waxay ku jirtaa marxalad ciidanka uu hogaamiyo oo dagaal ay kula jiraan kooxaha hubeysan, waxaana dowladda militariga ay u arkaysaa in kororka tamarta iyo warshadaynta ay muhiim u tahay ka bixitaanka go'doonka dhanka dhaqaalaha iyo in xiriirka Ruushka uu beddel u noqonayo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo dowladda Burkina Faso ay yeelan karayso, sidoo kaleetana meesha laga saari karayo saameyntii Faransiiska ay sida weyn ugu lahaa gobolka saaxil si gaar ahaaneed dalkan. Si kastaba heshiiskan wuxuu abuurayaa kormeer caalami ah iyada oo hay'adda IAEA ay kormeeri doonto, sidoo kaleetana ay hubin doonto inaan la adeegsan hub nuclear iyo waxyaabaha la midka ah oo tamarta korontada beri aysan isu beddelin hubka nuclear-ka. Burkina Faso aysan u noqon dalkii ugu horreeyay Afrikaan ah oo hubkan hela. Waaga qaybta hoose kommentiga igula wadaag fikradaada. Dhanka kale dalka Suudaan dagaal adag ayaa ka dhacaya magaalada lagu magacaabo Panabursa. Magaaladan oo Bursa la yiraahdo waxay ku taallaa galbeedka gobolka Kordofan, halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay waqooyiga iyo koonfurta lagu dagaalamayay. Sida warbaahinta Al Jazeera ay baahisay, ciidanka dowladda Suudaan ayaa u muuqanaya inay weerareen xarumaha ugu muhiimsan ee ciidanka dacmo sariic ay ku lahaayeen magaalada Papnusa. Sidoo kale waxaa la sheegay inay weerareen hareeraha magaaladan iyada oo ciidanka inta ugu badan ay ku dagaalamayeen dhanka waqooyi ee gobolka Kordofan. Ciidanka dacmo sariic ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay wajahayeen dagaal adag wixii ka dambeeyey markii laga qabsaday xaafadda ama deegaanka Al Cubeyd la yiraahdo oo ah caasimadda gobolka waqooyiga Kordofan. Ciidanka militariga dowladda Suudaan waxaa kaloo ay sheegeen inay burburiyeen 20 ka mid ah gaadiidka dagaal ee ciidanka dacmo sariic kadib weerar ay ka fuliyeen deegaanka ah Al Cayd lagu magacaabo. Deegaankana wuxuu dhacaa dhanka galbeed ee gobolka Kordofan. Dagaalada ayaa u muuqanaya gobolkan inay ku sii baahayaan. Darfur ayaa sidoo kale lagu dagaalamayaa iyadoo ciidanka militariga ee Suudaan ay baadigoobayaan sarreynta dhanka awoodda ee goboladan.
Israa'iil markaan fiirino mar kale waxay duqeysay dhankaas iyo Khan Yunis oo koonfurta magaalada Gaza ah. Si gaar ahaaneed Isniinta, ciidanka Israa'iil waxay bartilmaameedsadeen dhanka bari ee magaalada Khan Yunis, waxaana halkaasi lagu waramayaa inay gantaallo ay ku dhaceen. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyey sidoo kale dhanka Rafax oo koonfurta magaalada Gaza ah. Sidoo kale waxaa soo baxaya in maraakiibta ciidanka Israa'iil inay rasaas ku fureen dad shacab ahaa. Hal ruux ayaana ku dhintay dhanka Rafax, gaar ahaana xeebta, kuwo kaleetana dhaawacyo ayaa soo gaaray. Waxayna arrintan ku soo beegmaysaa iyada oo ciidanka Israa'iil, gaar ahaan taliyaha ciidanka Eyal Zamir, uu xaqiijiyey in shaqada laga joojiyey saraakiil sarsare, kuwaas oo la sheegay in ay waxyeello gaarsiiyeen dad rayid ah oo dhanka xeebta ku sugnaa. Qaarkoodna waxaa shaqada looga joojiyey inay ku fashilmeen ka hortagga weerarkii 7 Oktoobar 2023, markii Xamaas ay weerar la yaab leh ay ka fulisay deegaanada dhaca dhanka koonfureed ee Israa'iil ay xoogga ku haysato kadib howlgalkooda oo subax Sabti ah ay kaga dhaqaaqeen koonfurta magaalada Gaza. Ugu dambeyn, iska horimaadyada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa weli sii xoogaysanaya. 93 diyaaradood oo drones ah ayaa tan iyo waa berigii la adeegsaday. Sida wararku ay sheegayaan, duqeyntii ugu cusleed oo ay dhanka hawada isku weydaarsanayaan diyaaradaha droneska labada dowladood ee Ruushka iyo Ukraine ayaa la diiwaangelinayaa. Waxaa la weeraray magaalada Chernihiv lagu magacaabo iyo magaalooyin kale oo dalkaasi Ukraine ka tirsan ayaa soo gaaray. Waxayna arrintan ku soo beegmaysaa iyada oo ciidanka Israa'iil, gaar ahaan taliyaha ciidanka Eyal Zamir, uu xaqiijiyey in shaqada laga joojiyey saraakiil sarsare, kuwaas oo la sheegay in ay waxyeello gaarsiiyeen dad rayid ah oo dhanka xeebta ku sugnaa. Qaarkoodna waxaa shaqada looga joojiyey inay ku fashilmeen ka hortagga weerarkii 7 Oktoobar 2023, markii Xamaas ay weerar la yaab leh ay ka fulisay deegaanada dhaca dhanka koonfureed ee Israa'iil ay xoogga ku haysato kadib howlgalkooda oo subax Sabti ah ay kaga dhaqaaqeen koonfurta magaalada Gaza. Ugu dambeyn, iska horimaadyada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa weli sii xoogaysanaya. 93 diyaaradood oo drones ah ayaa tan iyo waa berigii la adeegsaday. Sida wararku ay sheegayaan, duqeyntii ugu cusleed oo ay dhanka hawada isku weydaarsanayaan diyaaradaha droneska labada dowladood ee Ruushka iyo Ukraine ayaa la diiwaangelinayaa. Waxaa la weeraray magaalada Chernihiv lagu magacaabo iyo magaalooyin kale oo dalkaasi Ukraine ka tirsan. Waa hagaag saaxiibayaal, wixii soo kordha ee kale akhbaraadka dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii eebooyina raali ka noqdo. Fadlan halkan isha ku hay. Wararka Soomaalidana waa qayb, wararka Itoobiya iyo Eritrea waxa ka socdana waa qayb, wararka kale ee dunida muslimkana si gaar ah ayaan idinkula wadaagi doonaa. Fadlan subscribe-ta hayla dhaafin, sidoo kale like-ta ii saar oo warka share garee si asxaab badan uu u gaaro. Diblomaasi Media ayana wararkan kala socoteen. Intaan ku kulmi doonno warkankiisa xiga, Allah ha wada leh haddii uu raali ka noqdo. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.